kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waa barnaamijkii toddobaadka iyo geeska Afrika Warsan TV waxaan idin la socodsiinay anigoo Cabdinaasir Cirro wararka caawa halkan idinku hayna waxyaabaha ugu waaweyn waxa kamid ah guddiga ammaanka gobolka Mudug oo soo saaray go'aamo cusub oo lagu adkeynayo bandowgii saarnaa magaalada Gaalkacyo hubiyaal la beegsaday garoonka diyaaradaha magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan shirkii ururka dib u xareynta Soomaalida uga soconayay magaalada Djibouti oo la soo gabagabeeyay iyo qaar kamid ah ciidamadii dawladda federaalka Soomaalida oo dib ugu soo noqday magaalada Muqdisho kadib markii ay soo gabagabeeyeen tababaro ay u joogeen wadanka Ethiopia intaasi waxay ahayd warkii oo kooban haatanna isagii oo fidsan guddiga ammaanka gobolka Mudug oo waayadii dambe taba halkaas ku shiraayay ayaa waxay soo saareen qodobo dhowr ay kamid tahay si xoojinta ammaanka gobolka Mudug iyagoo carabka ku dhuftay in la adkeyn doono bandowga saaran magaalada Gaalkacyo warbixin arintaasi ku saabsan waxa inoo soo diray wariyaha magaalada Gaalkacyo inaga soo warama Mahad Jaamac Koronto guddiga nabadgelyada gobolka Mudug ayaa waxay go'aamo ka soo saareen xaaladda nabadgelyo ee gobolka Mudug go'aamadani ayaa waxay soo baxeen kulamo ay dhawaan lahaayeen oo ay ka lahaayeen xaaladda gobolka waxaana ay soo saareen go'aamo ay ka mid yihiin in la adkeeyo bandowga magaalada saaran iyo waliba in ganaax la saaro cidii lagu arko agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta dhaqanka iyo dalxiiska dowlad goboleedka Puntland Cabduqaadir Faarax Bootaan ayaa warbaahinta uga warramay go'aamadii soo baxay waxaana guddiyada kala duwan ee maamulka iyo waliba nabadgelyadu ay ka shaqeynayeen sidii loo xalin lahaa dhibaatooyinkii amni darrada magaalada ka taagnaa Mahad Jaamac Koronto Warsan TV Gaalkacyo Soomaaliya hubiyaal lala beegsaday garoonka diyaaradaha ee magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen kooxaha ka soo horjeeda dawladda warbixin arintaas ku saabsanna waxaa inoo soo diray wariyaha halkaas inooga soo warrama magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa maanta waxaa shir jiraayad ku qabtay taliyaha ciidamada qalabka sida ee dhawaan dawladda federaalka u magacaaday Togane Muumin Huure Togane oo shirkaasi jiraayad saxaafadda uga hadlay ayaa waxa uu sheegay in kooxaha dawladda ka soo horjeeda ay hubiyaal ku soo tuureen garoonka diyaaradaha ee magaalada Beledweyne waxa uu sheegay in hubiyaashaasi ay dhibaato u geysteen dad rayid ah oo ka agdhawaa garoonka diyaaradaha wuxuuna hay'adaha samafalka ugu baaqay inay gargaar la soo gaaraan dadka ka barakacay magaalada Beledweyne iyo kuwa ku sugan magaalada Beledweyne sidoo kalena waxa uu ku eedeeyay kooxaha dawladda ka soo horjeeda in dhibaatooyin ay ka wadaan magaalada Beledweyne ayaa haatan waxa gacanta ku haya ciidamada Itoobiyaanka iyo kuwa dawladda federaalka mid ka mid ah dadka deegaanka Beledweyne ku naqan oo lagu magacaabo Sheena Cali Xaaf oo aan qadka taleefanka kula xiriirnay ayaan waxaan wax ka weydiinay xaaladda magaalada Beledweyne niman ayaa airport dad masaakiin ku soo garaacay hoodiye ma fahamtay dad masaakiin oo meesha degnaayeen ku laayeen nina dhintay in Muuse Jornaat liiraa ku dhintay iyo wiilkiisa yar baagtiisana dhaawac waa hoodiyena ku soo tuureen dadka rayidka ma kamid ah dadkaasi rayidka beledka deganay ba ahaayeen airport agtiisa degnaayeen ay ku lahaayeen guryo marka meesha lagu soo garaacay marka kooxaha Ethiopia miyaa mise kuwa dawladda ka soo horjeeda waxa soo tuuray dawladda waa dadka masaakiinteena lahayn hadda guud ahaan Beledweyne ayaa gacanta ku hay marka beledka ciidamada Ethiopia gacanta ku hayo ma janta kunti sharbarka meer u jirto 10 kilomitir ee hubi ka soo tuuray waana ordan haye kulamadii odayaasha Ethiopia-ka ee lahayn ka waran wallahi maanta ma kulmisaan lahayn inay samanta kulmina u maleynaya xaaladda jira awgeed inay soo kulmin beledka iyadoo amni dadkii ku soo noqorada hubiyaasha shirkii ururka dib u xareynta Soomaalida uga socday magaalada Djibouti oo soo gabagaboobay warbixin arintaasi ku saabsanna waxa inoo haya wariyaha magaalada Djibouti inooga soo warama Maxamed Bashiir waxaa dalkan Djibouti si rasmi ah loogu soo gabagabeeyay kalfadhigii labaad ee golaha dhexe ee isbaahaysiga dib u xareynta Soomaaliya kaas oo soconayay 19 ilaa 26 bishan aynu ku jirno ee July
munaasabad ballaaran oo lagu maamuusayay xiritaanka kalfadhiga ayaa lagu qabtay guriga ummadda ee dalkani Jabuuti halkaas oo ay kasoo qayb galeen hogaamiyaasha isbahaysiga madax ka tirsan dalkani Jabuuti xubno matalaya xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya safaaradaha reer galbeedka kuwa carabta iyo marti sharaf kala duwan munaasabada ayaa laga aqriyay bayaan ka hadlaya waxyaabihii ay qabteen oo ay isla meel dhigeen xubnaha golaha dhexe intii ay wateen fadhigooda caadiga ahaa kadib bayaankaas ayaa waxaa fursad la siiyay Mr Bruno oo isagu ah ku-xigaha Axmed Walad Cabdallah oo xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya waxaana Bruno uu sheegay in heshiiskii Jabuuti ahaa natiijo ballaaran oo u soo hoyatay Soomaalida si dalkooda u noqdo mid ammaankiisa iyo qarannimadiisa u soo laabato waxaana uu sheegay in golaha ammaanka ay si buuxda isugu raaceen heshiiskaas una taageereen give and take. You have to compromise and you have to reach out to all the Somalis wherever they are. Kabila Bato hada Somalia wahaye tik saneisa nabawato ahumar Kabila Bato hada Somalia wahaye tiksanaisa nabatwarto oromar iyo deris wenek gudoomiyaha golaha dhexe Shariif Xasan Sheikh Aadan oo isna halkaas ka hadlay ayaa ku ammaanay xubnaha golaha dhexe dowrkooda wanaagsan isagoo ku celceliyay in xubin walba ay ka shaqeyso dhamaynta khilaafka soo kala dhaxgalay xubnaha isbahaysiga dhexdooda si midnimadii isbahaysigu soo laabato gudoomiyaha isbahaysiga dib u xoreynta Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo gabagabadii munaasabada halkaas khudbad dheer ka jeediyay ayaa ka hadlay dhinacyo badan iyadoo uu Shariifku tilmaamay in kalfadhiga golaha dhexe ee isbahaysiga dib u xoreynta Soomaaliya ayaa inkastoo uu guul ku dhamaaday sida ay cadeynayaan xubnihiisa haddana waxa ka marnayn hadalhaynta xoogan ee xubnaha isla dhexmarayeen ee ku aadan shirki ka dhacay Asmara ee lagu sheegay in Sheekh Xasan Daahir Aweys loogu doortay gudoomiyaha golaha fulinta isbahaysiga dib u xoreynta isla markaasina xilalkii looga qaaday Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo Shariif Xasan Sheikh Aadan madaxda isbahaysiga iyo xubnaha fulinta iyo kuwa golaha dhexeba waxay si gaar ah mahad celin ballaaran ugu jeediyeen dawladda Jabuuti shacab ahaan iyo xukuumad ahaanba si gaar ah madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo isagu tan iyo markii uu xilka qabtay u guntaday sidii Soomaaliya uu nabadeeda u soo celin lahaa ilaa haatanna garab taagan shacabka Soomaaliyeed Maxamed Bashiir Sheekh Cabdiraxmaan Warsan TV guriga ummadda ee dalka Jabuuti wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa in qaar ka mid ah ciidamada dawladda federaalku ay soo gaareen gudaha magaalada Muqdisho iyagoo ka yimid waddanka Ethiopia oo halkaasi tababaro ku soo qaadanayeen ciidamadan oo la sheegay inay tababaro kala duwan ku soo qaateen waddanka Ethiopia ayaa la sheegay inay soo gaareen magaalada Muqdisho iyadoo ciidamadaasi la dejiyay qaar ka mid ah deegaano ka tirsan magaalada Muqdisho waa tahay daawadayaal intaasi waxaynu ugu dhamaaday barnaamijkii toddobaadka iyo geeska Afrika Warsan TV oo idinla socodsiinay anigoo Cabdinaasir Cerro tan iyo intaanu mar kale barnaamijkan la mid ah wada ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo